بسم الله الرحمن الرحيم. دي لا يراهدو maanta oo taariikhdu tahay 19 bishii 7 2018 waxaan jeclahay inaan meeshan ku soo gudbiyo tix yar oo magaceeda la yiraahdo Damac Oromo waan rabaa inaan ku cabiro ujeedada Oromada iyo dadkan Soomaaliyeed oo aan dareen kii looga bartay ama ay u dhasheen aanu maanta ka muuqan oo iyagoo Oromo dadkii soo laayay haddana damacoodu yahay inayba la wareegaan wadankii kuna soo dilay kuwii la deriska ahaa oo ku soo dhaqmay iyada kilinka Oromadu ay ku leedahay dalka Itoobiya oo isku kilinayeen soo laysay inay haddana imaanayaan Soomaaliya lagu soo dhaweynay tixdan oo marka hore ku hal qabsaday aan ku sheegay nin yar oo la yiraahdo Nageeye Cali Khaliif oo aan jeclahay aragtidiisa iyo sida uu dhigo uga hadlo arrinta Soomaaliya waxay oranaysaa tixdan Damac Oromo murti dahaba suugaan dawa ah oo qalbiga deeqda oo danaha Soomaaliyeed looga rogo daaha maduulihii Nageeye baabriyadan doobiga u siday marba meel dalooshay oo bulshada marba meel dalooshiya bulshada dacar la siinayo dariiq halisa oo lagu socdo bowdaya yiraahdaa dareenkayga iyo kiisu waa ul iyo diirkeed hadba nabar damqanayoon rabo waran ku dooxaa da'dii iga yareed weeye oo waan ku diirsaday duca waalidkii buu qabaa duca waalidkii inuu qabo yaan cidina diidayn dunjigeeda Soomaali baa loo dan leeyahay hal diin iyo af bay leedahay iyo weliba deegaan dusha midabka iyo dhaqanka baan kala duunaanayn daarood iyo hawiye iyo dir iyo magacyo deel qaafil oo dilay hankooda iyo qabka loogu dawgalay nin xun iyo dulaal baa bulshada daayacoo hoday markii la isu diray oo iyada la isu dacareeyay kuwii dunida ugu liitay baa soo damaaciyay oo dilay duqeey iyo caruur aan ka qabinday naftayduna danguud waardiyaha inay dul taagnaato oo dabinka dhagartiyo warmaha nacab ku deelaystay uga diga bulshadu waa dareen laygu daabacay durbaankayga dhilada wata iyo dananka suugaanta dawan qaylo dheer aan mar qura dunida gaarsiiyo doqon uruday oo moog wax jiray aan dareen geliyo kala daadsanaan baasan iyo daayac baa jira Soomaalida Itoobiya degtay daa'im ku abuuray xadka dacalka dheer Oromaday daris wadaagaan doolaw iyo wajeer iyo ilaa sabada diimoole degmada Nageyle iyo bulshadu dacal kastay taalo baabili dusheeda iyo ilaa daaqalkii adari deegaanka harar qoloji iyo beerihii dalaga Soomaalidii daadsanayd baa dareen galay Oromadu dadkeenii birbay kala dulboodeen duulaan abaabulan qorshiyo xaaladaba dheer leh dunsiib iyo tirtirid bay wadaan duumaxaaqdagu duqabowday iyo canug yar iyo naagihii dile dunya dhaqatadii baan mid qura cidina daayeyn kumanaan dalaabayso oo dad iyo maal haysan mooyaale iyo dirir dhabe yaa lagu dabiiba kuwa nacabku dooxaa dhintay oon helin walaal duuga oo dugaaga kaymaha ku jiray uu ku doobinayay dacdarada kuwii dhaawacmay oo duurka weli daadsan kuwa diriraya oo ciil cunay oo dibinta ruugaya waan ehel u diiriyo walaal soo degdega waayey inkastuu dalkii iga fog yahay waan la duubnahay dakanooyinkaa maqan markaa toosu daba joogto afku deeqa iyo cududa buu daana dheer yahay aan diro fariin diiranoo nacabka dooxaysa dugga Cali Sabiix Boorame iyo degelkan Hiiraana daaraha Hargeysa iyo Burca iyo duulka Camar jooga kuwa dega Kismaayo iyo gediyo daaqsintii Mirifle dooxada Nugaal xeebta dheer buurihii dalaga bulshada digil ku nool wabiyada iyo beerihii dalaga daafaha jigjiga kuwa dega iyo dolla iyo ceelcad kuwa dega wajeer Kenya iyo deelashii adari ximan iyo dudada mudug degta oo geela daaqsanaya dadka magaca Soomaali baan baaq u diraya inkastoo dakana hoose iyo daana nagu raagtay daqarada dhexdeena ay waa dayn walaal qabo wax kale ka daran baan arkaa dayana maysaan haddii aad damiir leedihiin waan ka digaya Oromada dadkii laysay oo dunyadii marisay
oon habar duqowdoo dhacdiyo culumadii diinka iyo deriska uurka uga jiray axadna dayn weysay oo daashashkoodii gubtiya beerihii dalaga waagii dilaacaba kuwii dhiigga naga daadshay hargeysiya degmada boorame iyo dooxadii bari kumanaan isdaba joogtabaa daaqalka u gala boosaaso dacal iyo ka dacal daafidaa waran uga badan dadkii kale dhulkii dahabku noo yiil nin soo dilay walaalka berrina adig ku dooxaaya diiraad raac qaxootiya haddii aad u darajayso ood meel dejido waa adiga dabar go-aadii waa wixii daraad lagu qabsaday duulkan falastiin oromadu dantay leedahay iyo damaca uurkoodu waa inay dalkoo idil dharaar naga dareershaan waa inay dekedihii iyo furtaan daarahoo idil waa inay degaan ciidayada kuna dikeeyaan haddaynaan dareen yeelan waa laydin dagayaa haddaynaan dareen yeelan waa laydin dagayaa damanow ka toos oromo waa cadow dushaadaay afartaa dad baya nuxurka kaleaan u daadege soomaalidu dun adag bay lahay daman colaadeeda hadday diriirsan tahay qaybna uu nacabku dooxaayo daqarada la gaarsiiyey iyo dhiigga laga daadshay raka diriro oo waxay lahayd soo danaaniya haliyay duugan oo soo baxoon daalin baa jiray ficil iyo dareen bay lahayd hiila daba taal dirac iyo nin door bay lahayd diiran oon baqin dumar dhiirigeliyay lahayd maalin dirirayd salaadiin ducaysa iyo duqay talada loo doonto deeqsi iyo tujaar bay lahayd dheefta soo dira dhalin dooxataa bay lahayd goor habeen dubay duulaanka oromada miyaan la isdareensiinin horor iyo dugaag weeye iyo daalim noocole daad soo rugmaday waan biyo awgu dul marayaa intaysan dalaaqna siin waa inuu shacabku diiraa siday noo dileen waa inaan ula dagaala meeshii dab lagu shidi jiray bay daybu ku hadhaaye waa inaan dadnimadeennii hore dib u midayna waar waxaan leeyahay tukaraq baa la isku dilay iyo meel heblaa la isku dilay waxba tari mayse weliba labadan qole ee bari iyo waqooyi galbeedu war soomaaliyadii intii kale sabab ha u noqonina oo cadowga soomaali soo dilay ha magan gelinina oo weliba anugu lama hadlay siyaasiyiinta dadka shacabka ee soomaaliyeed waa inay damiirkoodii soo celiyaan iyo dadnimadoodii oromo meeshii lagu arko waa in la xaaqo waa in dalkaan ka saaro haddaynaan ka saarin annaga naga saaraysa waxaa la yidhi nin baa nin u soo martiyey markaas waxay ayd baan u malaynayaa kolla waddankaa falastiin baa nin yahuudoo guri nin uga deganaa falastiini ah yaa yidhi nin u soo martiyey markaasuu war ninkan iiho markii baa ninkii la hoyday markaasuu subaxdii ka tegey markaasuu duhurkii ku soo noqday kii guriga iska lahayo isago kiioo dhar dhaqanaya markaasuu yidhi war maxaa dhacay miyaadan saa ka bixi kor u eegay markaasuu yidhi ma anigaad garanaysaa maxaa kaa qaldan war miyaadan ninkii war marti adiga ah adeer taas baan ku soo socota war soomaaliya ka kaca war dadkan walaalaheeno la dilayo waa inaan garab siino waxaan ku garab siinaynaa kuwa annaga noo yimid oo oromadaan iska xaqayna waxaan ku garab siinaynaa waa ku banaan baxayna waxaan kala hadlaynaa madaxda Ethiopia ra'iisul wasaarahan la hadlayna oromo ah oo dadka Soomaalida la aanayo oromo laynaysa aan ka hadlay hadda meel u dalxiisay assalaamu calaykum waraxmatullahi